dhalinyaro waa waqtiga aan baraarugi lahayn oo aan ka faa'iidaysan lahayn kartideena iyo awooddeena si buuxda. Maanta waxaanu noolnahay waqti baraaruga uu yahay kala baxa geerida iyo nolosha. Bismillaah, assalaamu calaykum. Isku soo laashana saacadii qayb waxaan rajaynayaa fiicantiin soo dhawaada. Baraarug dhalinyaro, ku baraaruga waaqica nololeed ee nolosha dhalinyarada. Maanta waxaanu joognaa waqti baraaruga uu yahay nolol. Maanta haddii aad ku baraarugsan tahay waaqica nololeed, waxaad la mid tahay qof u nool si dhab ah. Ma ogtahay haddii aad ku jirtid jahwareerka social media iyo noloshan casriga oo degdeg ah, baraarugu maanta waxa uu la mid yahay sidii qof dhab ahaantii nool. Haddii aad tahay qof baraarugsan, waxaad la mid tahay qof u nool si dhab ah. Ma la socotaa dunida maanta inay ku socoto si degdeg ah, waqtigu wax walba ay isbedelayaan, noloshii ay noqotay tartan iyo ceyrin aan dhammaad lahayn. Maanta waxaanu noolnahay waqti baraaruga uu yahay kala baxa geerida iyo nolosha. Ma ahan geerida jirka ee waa geerida hanka iyo hamiga nololeed. Haddii aad tahay dhalinyaro kaasoo sugaya xaalado in isbedelaan noloshan iska hagaagto, muuqaalkan adiga ayaa lagu talagalay oo adiga ayaan kula hadlaya. Maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago fariin muhiim ah oo qoto dheer. Fariin toos idinla hadlaysa idinkoo ah mustaqbalka dalkeena iyo diinteena. Ku baraaruga waaqica nololeed ee nolosha dhalinyaranimada. Waxaan ku jirnaa xilli dunidu ay ka dhacayaan isbedelo fara badan. Wax walban ay xawli ku socdaan. Fursado cusub ayaa soo kordhaya, caqabado fara badan ayaa imaanaya, challenges badan ayaa soo kordhaya, problemyo aanan jiri jirin ayaa soo kordhay. Dhalinyaro ahaan waxaa ina saaran mas'uuliyad aad u weyn. Mas'uuliyad ah inaan nafteena horumarino, aan ku baraarugno waaqiceena, aan fahamno waxa socda iyo sidee u socdaan. Nafteena aan horumarino, dadkeena aan wax u qabano, dalkeena aan hagaagsano, diinteena aan sare u qaadno. Dhalinyaro waa waqtiga aan baraarugi lahayn oo aan ka faa'iidaysan lahayn kartideena iyo awooddeena si buuxda. Waxaa hubaal ah inaysan jirin wax ka fiican oo ina jeeyin kara qaabayn kara nolosheena markii loo eego dhaqankeena suuban iyo diinteena islaamka. Waa laba tir oo aan kala maarmi karin, kuwaas oo inoo noqon kara jihayn dhab ah iyo iftiin cad oo ka muuqda mustaqbalka nolosheena. Liibaan wuxuu ahaa wiil ku takhasusay IT-ga, balse 3 sano kadib qalinjabintiisa weli waxa uu fadhiyaa maqaayaha isagoo weli ku doodaya inaysan jirin wax shaqo ah, dalkuna uusan lahayn shaqooyin. Asigoo ku jira noloshaasi ah eedaynta dalka iyo dadka iyo waalidiintiisa iyo dadkiisa, ayaa habeenada ka mid ah wuxuu arkay ama uu daawaday video wiil dhalinyaro ah oo isaga ka yar, kaasoo sameeyay shirkad ka shaqeysa artificial intelligence-ga. Waxa uu daawaday wareysi laga qaaday wiilkaasi. Liibaan habeenkaasi waxa uu ogaaday inuusan ahayn shaqo la'aan ee uu yahay baraarug la'aan. Uu ahaa qof mashquulsan, qof maran, qof noloshiisa aan wax jiha ah lahayn, qof iska fadhiya social media scrolling iskaga jira, qof noloshiisaba ay tahay fadhiid. Waxa uu ogaaday inuusan baraarugsaneyn. Waxa uu ogaaday inuusan noloshiisa u lahayn jiha cad iyo waddo cad uu ku socdo. Habeenkaas ayuu baraarugay. Waxa uu ogaaday inta uu Facebook iyo scrolling uu ku jiray social media iska wareegay, dhalinyarada kale inay dhisanayaan mustaqbalkooda. Shucuurtiisa ayaa isbedeshay. Dareen iyo rabitaan aad u xooggan ayaa ku dhashay, kaasoo ah waa inaan ka kaca fadhiga, waa inaan noloshiisa jiheeyaa, waa inaan wax qabsadaa. Markaasi ayuu baraarugay Liibaan. Intuusan waqtigu ka dhamaanin, adiguna hadda baraarug, noloshaada gacanta ku dhig, u istaag noloshaada, naftaada waa u qabso. Baraaruga dhalinyarada taariikh ahaan waxa uu ka soo bilaabay kacdoonkii aqooneed ee qarnigii hore, isagoo hadda isku bedelay digital awakening, halkaasi oo maskaxda laga xoreynayo gumaysiga iyo waqti lumiska baraha bulshada. Aragtida islaamka iyo quraanka kariimka, baraarugu waa udub dhaxaadka islaamka. Waa inuu qofku ogaado uu ku baraarugo waaqiciisa, uu ogaado sababta loo abuuray iyo waxa uu dunida u joogo iyo doorka uu kaga jiro nolosha. Hadda aan idinla wadaago tallaabooyin wax ku ool ah kuwaas oo aad ku baraarugi karto oo aad ka hormarin karto naftaada. Qodobka koowaad, barashada diinta iyo dhaqanka. Ku dadaal barashada kitaabka Alle, quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam. Inaad fahamtid ahkaamta diintaada waxaa hubaal ah inaad ka heli doontid nolosha ugu quruxda badan, uguna wanaagsan, uguna degan. Qiimee dhaqankaaga, baro taariikhdaada, suugaantaada iyo qiyamka dhaqankaaga iyo qofnimadaada. Qodobka labaad, waxbarashada iyo horumarinta aqoontaada. Waxbarashadu waa aasaaska horumarka shakhsiyadeed iyo kan bulsheed. Waa furaha guusha. Ku dadaal inaad waxbarashada ka gaartid heer sare, ha noqoto maadi ama diini. Qodobka saddexaad, baro xirfad cusub. Maanta dunidu si xawli ayay ku socotaa. Qofka xirfadaha leh ayaana ah mid ka badbaada. Adduunkan sida degdeg ah isku bedelaya, qofka xirfadaha kala duwan leh waxyaabo badan xalin kara ayaana ah midka loo baahan yahay. Suuquna qofkaas ayuu u baahan yahay. Ee noqo qofkaas. Qodobka xiga, ka fogaanshiyaha balwadaha iyo waxyaabaha xunxun. Balwadu waa dabaynka shaydaanka. Weligaa ha ku dhicin oo ka fogow intaad ka fogaan karto, sida daroogada, sigaarka, qamriga iyo guud ahaan dhaqamada xunxun waxay burburiyaan mustaqbalkaaga iyo noloshaada, caafimaadkaaga iyo mustaqbalkaaga. Sidaas awgeed ka fogow meelahaas iyo dadkaas.
qodobka xiga isticmaalka wanaagsan ee baraha bulshada. Waqtigan la joogo baraha bulshada waxay noqdeen sidii daroogo oo kaleeto, la qabsi iyo isticmaal joogto ah. Sidaas awgeed naftaada la baxso oo noloshaada ka badbaadso. Isticmaalka badan ee baraha bulshada waa daroogada casriga. Isticmaalka badan ee baraha bulshada waa daroogada casriga ah ee qarnigan. Iska ilaali oo ka fogow oo isticmaal si xigmad leh. Ka faa'iidayso naftaada ku horumari. Aysan ku isticmaalin oo adigu isticmaal. Qodobka xiga halganka nolosha. Naftaada u halgan, noloshaadana wax u qabso. Ha ka baqin inaad shaqo adag qabato. Ha ka caajisin inaad dadaasho. Ha is dhiibin. Ha joojin dadaalka. Kartidaada iyo aqoontaada iyo xirfadaha ka faa'iidayso. Ku dadaal inaad naftaada ku tiirsanaato oo aad noqoto qof wax soo saar leh. Qodobka xiga dhisidda shakhsiyad wanaagsan. Shakhsiyad hadaf leh, akhlaaq leh, anshax wanaagsan leh. Ku dadaal inaad lahaatid akhlaaq suuban, run sheegida, ballan ilaalinta, kalsooni buuxda iyo ixtiraamka dadka, kuwaasoo kugu caawinaya inaad gaartid hadafyadaada nolosha. Tusaale ahaan, koox dhalinyaro ah oo ku sugan Hargeysa ayaa sanadkii hore hindisay nidaam biyaha lagu sifeeyo kaasoo isticmaala qoraxda, iyagoo helay maalgelin caalami ah. Ma dhihin dowlad hebel caawi, waxay ku baraarugeen waaqica iyo dhibka ka jira deegaankooda, wayna xaliyeen. Waa faa'iidada iyo saameynta uu leeyahay baraarugu. Inaad ku baraarugtid naftaada waxa ka khaldan oo disagaajisid. Inaad ku baraarugtid deegaankaaga waxa ka khaldan oo aad hagaajisid oo aad xaliso. Baraaruga dhalinyarada ee qarnigan ma ahan kaliya mid ku yimaada rabitaan, ee waa marka qofku uu dareemo in aqoontiisii hore iyo dhaqamadii hore aysan u goynaynin nolosha cusub. Waa inaad samaysaa relearning, dib u barato sida loo noolaado, dib u barato sida wax loo barto. Waxyaabihii hore ma shaqaynayaan, dunidana way isbedelaysaa. Saaxiib, ma ogtahay in nolosha dhabta ah aysan ahayn waxa ka muuqda Instagram-ka, Facebook-ka iyo TikTok-ka? Dadku waxay soo bandhigaan halkooda ugu wanaagsan oo keliya. Qof walba meesha uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku fiican yahay kaliya ayuu soo bandhigayaa. Qofna lagama yaabo inuu ku tuso halka uu ku liito, dhibtiisa iyo waxyaabaha noloshiisa haysta. Sidaas awgeed baraaruga dhabta ah waa inaad ogaataa in nolosha social media ay tahay nolol fake ah, kana fog xaqiiqada. Sidoo kale baraaruga dhabta ah waxa ah inaad ogaatid in shahaadadaadu ay tahay kaliya warqad haddii aysan xirfad u helinin. Sidoo kale in asxaabtaada fadhiidka ay yihiin silsilado kugu xiran. Sidoo kale ogaanshiyaha iyo ku baraaruga in waqtigu uu yahay lacagta kaliya aadan dib u soo heli karin. Baro sida looga baxo comfort zone-ka. Nolosha dhabta ah waxay bilaabanaysaa markaad joojisid cabashada. Waxaan kula wadaagayaa 5 ficil oo maanta aad samayn karto si aad ugu baraarugtid noloshaada. Qodobka koowaad, samee baaritaan nafsaani ah. Qor 3 shay oo noloshaada iyo waqtigaaga burburinaya, iyo 3 shay kale oo naftaada iyo noloshaada dhisaya. Qodobka labaad, baro xirfad dhammaystiran. Baro xirfad ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee 2026. Ha ku ekaan waxaad dugsiga ama jaamacadda aad ka soo baratay. Baro waxa uu suuq u baahan yahay. Qodobka saddexaad, hagaaji akhlaaqdaada. Baraaruga dhabta ah wuxuu ka bilaabmaa inaad xiriirka Ilaahay ka hadlaya aad dib u hagaajiso. Akhlaaqdaada aad toosisid, salaada aad ilaalisid, daacadnimo aad la yimaadid, iyo dhammaan isbedelada muhiimka u ah shakhsiyadaada iyo horumarka noloshaada. Qodobka xiga, isbedel muuqaal ahaaneed. Muuqaalkaagu waa baraankaaga. Noqo qof nidaamsan, nadaafad iyo haybad leh. Midka ugu dambeeya, ku soo bir SG community. Ha ahaanin keligaaga. Raaso dad adiga kugu dhiirigelinaya guushaada, sida SG community. Waan ku dhisaynaa, waan ku horumarinaynaa, waana ku caawinaynaa. Insha Allah. Nagu soo bir oo ha siigin. Saaxiib, waalidkaagu waxay kugu soo koriyeen dhibaatooyin iyo rafaad fara badan nolosha. Maalinta aad gabowdo ama aad weynaato, ma waxaad rabtaa inaad ka sheekaysid waxaad qaban lahayd ama wixii aad qabatay oo aad ku guulaysatay. Baraarugu ma ahan xanuun ee waa dawo. Ha u ogolaan waqtigaaga dahabiga ah ee dhalinyaronimada si maclaayani ah. Aadna hadhow dhaasid waan yaraa uma baraarugsanin. Hadda baraarug. Xasuuso saacadda iyo waqtigu waa ay socdaan, balse adigu ma la socdaa. Ha sugin qof kale inuu wax kuu qabto. Naftaada iyo noloshaada adiga ayaa ka mas'uula. Ku bilow naftaada, ka bilow qoyskaaga, ka bilow bulshadaada. Wax kastoo aad ku dadaashid Alle wuu kugu garabsiinayaa. Ilaahay tala saaro, dadaalka sii wad. SG community aan u kacno baraarug dhalinyaro. Aan noqono kuwa cilmi leh, shaqo badan, diin iyo dhaqan suuban leh, akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan leh. Aan noqono kuwa wax dhisa, ee aan noqonin kuwa wax dumiya. Adduunkeena inaan is horumarino, aakhiradeenana aan u camal falno. Haddii aad diyaar u tahay inaad ka mid noqotid dhalinyarada baraarugsan SG community, halkan waa gurigaaga. Halkan waxaan ku dhisnaa maskax ahaan, muuqaal ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo guud ahaan horumarinta nafta iyo nolosha dhalinyarada. Nagu soo bir oo nala kor
si aad uga mid noqotid guulaystayaasha beri. aad baad u mahadsantiin asxaabtayda qaaliga. waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidaysateen. laga bilaabo maanta noqo qof baraarugsan, waaqiciisa iyo noloshiisana la socda. waxaa inoo ballan ah videoga insha Allah. subscribe saar, like saar videoga, share gareey haddii aad awooddo. waxay inaga caawinaysaa inaan si fudud u korno. aad baad u mahadsan tahay. kulanti dambe oo xiise leh. maca salaama.